KNN ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah ilaahay war qoladinaan kala maan annagoo isku maana maxaa loo arki waayay aryaha isku maan naga dhigaya mahmaahyaaba jirta la yiraahdo maan dad waa mudacyo afkoore warnimada adduunyada mid yar iyo mid weyn aad mi isku maanay ma jiro laakiin maslaxad la isku raacaa jirto oo wixii ka dhaxeeya ummad bay wada ilaashataa war maxaan wada ilaalsanaa waaba kala go'naa lix maamul goboleedaan kala nahay war kala sheegoosid meerta maasaku mahashleel dhahaa warnimada ma dhageysta kala maamuligiisoo jiray afar nin oo kala maanaha kulantay mid waxa uu yiri ilaahu roobna si midna waxa uu yiri ilaahu roob ha keenin bukaar idan idan dabal qaadaya qoyayse midna waxa uu yiri ilaahu roob ha keenin sababtoo ah sagaray dhigneen tadawri roob imaanta ee dhixme allow runtiisa kaastaan marqaati ka ahay warni hadalkayga dhaxgelay mid kalena waxa uu yiri aniga awray ka dhuntay hadduu roob imaana raadkeedii waa baabaa ee ilaahu roob ha keenin arada ani waxaan idin leeyahay idinka markiid kala maan noqoteen anigi iyo sagaaradin israadsanayniba kala maan noqonay xabadaad bushkum ka wada siiseen markaasaa intay kala fiigeen darsaalihii dalalka kala aaday aryaa bushtanaa sheegaysaa maanta waxay ka dhacday iskool buluusiya maanta laba shabaabaa la toogtay ayadoo hal toddobaad sanadkan ka baxday sanadkii hore dhammaadkiisiina saddexaa la toogtay haddee labadii sano dawladda arbacay jirtay shan shabaabaha la toogtay marka haddii la dhihi jira madaxweynuhu toogashada ma saxiixo waa beenowday waana isi soo caanbaxshay oo kaali qaraxa oo abatay camal loo buubuubaayo waxaas u joogsa waayaba laba sanoo dhalatoo dhammaato maa shan shabaab lee la dilay shidda waa idin haysataa wallaahine maalin walba haddii shan laga dili lahay shabaab mar horey la'a lahaayeena caawahee aryaadhaha shabaabkaasaan ku keenay wiil shabaab ahaa amiirkiisu wuxuu u sheegay inuu xala ku riyooday asagoo shahiiday oo jinnada dhex dabaalahaya kadibna igaarkii shabaabka ay habartiyow inuu tago wuxuu u sheegay in amiirkiisu ugu riyooday asagoo shahiiday oo jinnada dhex fadhiya waxay tiri waa fiican yahay oo cawadiya inya la seexday subax inya ka kacday waxay tiri maandhahay waxaan ku riyooda adiga iyo amiirkaaga oo inya shahiiday jinnada dhex fadhiya kadib wiilkii inya soo baxow amiirkiisi inuu yimid oo wuxuu yidhi habartay waxay ku riyoota aniga iyo adiga oo inya shahiidnay jinnada dhex qoqotodna kadibna amiirka wuxuu yidhi shaqfir oo yur habartaa riyadeera wax kama jiraan waana murtadad ee dib dambayay iigu riyooninuu yidhi wiilkiyaa muggaas asna wuxuu yidhi adiguna amiir dib dambaha iigu riyoonin war amiirka ilmahan jinnada ugu riyoonayo asaga uma socdo miya anigu waxaan dhihi lahaa ninka sheeka ibliis intuu shaaraca keenay shacabkeenna wareershay qarankeenna shideeyey qoryo shiishla u dhiibay isku shiisha u sheegay badana shiddadiisu ilaahow naga shaafi war waxaan maqli jiray shilka iyo shiish miyaan naqiin sharuurkaynaan shushuba jirnee war shabaab shuruur ma qaataan sikabaaday ula baxeen warnimada war ma haysaane maanta 21 musharaxa oo u tartamaysa madaxweynenimada Puntland baa baarlamaanka la hadashay cabdiweli gaasoo ka mid ah wuxuu yiri Puntland 5 sano tagtay waxaan gaarsiiyay daruuraha haddaad mar kale i doorataan dayaxaan geynaya soolna waa xoraynaya xiriirka no Soomaaliyana waa jaraya oo kaali isaga Soomaali ma ahmiya war wasiirkii arrimaha gudaha Juxa oo musharaxiinta ka mid ah waxa uu yiri anigu ma hagoganiye doorta cidna ima wadata ee doorta war kalena idin sheegi ma waad inta qaanaan buu yiri war 22 musharax oo hadashay 20 ka mid waxay eedeeyeen Cabdiweli Gaas waxayna dhahan Puntland dayax iyo daruuro midna ma gaarsiina ceelu ku riday mid kastaana wuxuu yiri dibka uu gaarsiiyay Puntland inaan anigu ka soo kaban maahane ka soo kaban mayso warnimada anigu musharaxiintii meesha ka hadlay
hadlay nin 4 eray oo suugaana hadalkiisa ku soo koobay ayaan aad uga helay waxauna yidhi xishoodka ha ka tegin xildhibaan xaragada ku dhimo xildhibaan intaad aniga xoortaan xoolaheega raacina yaa xubeeraan ahayo xabad ma hees dhammow ka wadaa war madaxweyne xaafaad ducaystay wuxuu yidhi ilaahu cabdiweligaas annagoon u baahnayn adaa noo keenoo nugu karbaashay ilaahu maantaan u baahannahay noo soo celi buu yidhi war doorashada puntland talaadaa lagu beegay cabdiweligaasna waxa uu yidhi doorashadaannu arbaca dhici mayso waa mid xor ah arbaca hadday dhici lahayd arbac ayaa ku guulaysan lahayd miyuu ka wadaa aryaadhaha shala madaxweyne waara isbitaalkaysanayou booqda garoonka cisaleeya dekadda ceelmacaanna waa tegey mugga waxaan la yaabanahay kaysanay ma shabeellada dhaxay naqata mase xamaray ka tirsanaad horta arniyow shabeellada dhehe kaaraha ka bilaawadaasa war waddadii u dhaxaysa xamar iyo jawhar hadduu mari waayey oo shabaab xirtay inuu kaysanay booqda xaguukuura warnamiyo ani warsiinhaaya koonfur galbeed haddii madawiinasha muqdisho dhaha fidhi jiray kafee ku waraabay saaslayka maamulaayi madawiinagii usubahay lafta gareena lahaay ilaa hatta waagi dhaha fidhiye meelaka dhaha hukumohaya qoladun lilay garamada midowna may ereena ciidan jay beesa masiyaana kiyan dawladda arba'ayna ilaa hatta wili ma ele masaarna hujoodiyeeda hayti may hayti war beenta iska daa madaxweynaha gobolka banaadir injineer iriisow farxiye kabayar iyo xasan gantaal ayaa daynila ku calayma saaray dhuudhumashaw ila saaldheel dabtaanku saare yalaariirad eleengadeedii maa war guddoomiyihii degmada cabdicasiis waa tii xilka laga qaaday oranjo lagu beddelay mas-uul aana magaciisa sheegin ayaa ka cadhoodaa la yidhi xilkiina waa lagu soo celiyey guddoomiyihii degmada holwadaagne isna markii xilka laga qaaday mas-uul kalaa cadhooday isna waa lagu soo celiyey marka guddoomiye aan lahayn mas-uul u cadhoodo sidii kii yaaqshida u baxayaa loodii la xerxerayba weli xildhibaan soo daaya ma helin war oranjo haddii cabdicasiis laga soo celiyey xamar shajabaa lagu maslaxeeyey nimayo waxaan igu cosahaa xamar weyn gadoomiyi mala garoob waaye markaana lii aroosiyo war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaanooda waa wuxuu yidhi galmudug masruufkii waa laga goostay khilaafka siyaasadeedna in dadka loo cunaqabateeyo maaha mashaariic badan oo bulshada wax u taraysana waa laga joojiyey marka madaxda dalka xukuntaa galmudug ay ka soo jeedahay mustaqbalka hadday rabaan inay xildhibaannimo looga soo doorto cunaqabataynta ha ka qaadeen war madaxweynihii gaabon waa la afgambiyey militariana waddankii la wareegay war wasiirkii gaashaandhigga ingiriiska shala hargeysa ka degey war baa ka dhashay waxaa la yidhi waayahan waddan xoog loo waxtaraannu ahayne waannagii yu'ankii wakiilkii u dambeeyey waraaqdiisa u geyne wasiirkii ingiriiska ka hadlaaya waqooyi war maxaan ka qabnaa ma weyddiinna safiirka mase waa nala waabsha aryaa safiir haddaan ceyrinamo wasiiraan u daahayna qandhaad qabtaa war gandhuma gabo hataa ka dagartalanka war wasiirku waa ingiriis safiirkuna ingiriis u ahaa maxay kugu kala duwan yihiin waryaada dalkiinna u shaqaysta waa la dilaa waana la ceebaa waa la dilaa waryaad ilaahay ka cabsan jooji naga tag abaara tage